الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. ومركي ugu horeysay oo halkan laga aadaamo waa guri cusub oo kamid noqonaya guryaha Ilaahay. Waxa halkan degan Soomaali fara badan oo ku ganacsanaysa iyo waliba dad kale oo muslimiin ah oo u badan dad ajaanib ah oo halkan ganacsi u yimid sida Bangladesh-ka, Ethiopia-ka iyo dad kale oo muslimiin ah. Sheekh Abdirasaaq waxa uu kamid yahay mashaayiqdii ugu horeysay ee halkan bilaabay in la iibiyo oo masaajid laga dhigo iyo waliba qayb madrasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacayga waa Abdirasaaq Cabdi Axmed. waxaan hadda joognaa ku suganahay Swazi in masaajid aan baryahan lacagtiisa aruurinaynay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisi Ilaahay wuu noo dhameeyay lacagtii masaajidka ku soo wareegnay. maanta fadiilatu Sheekh Shariif baa martino ahaa Al-Nur Islamic Center. meesha waxaan ku haynaa ilaa 300 qof oo yar iyo weyn oo soo islaamay. marka insha Allah waxaan ka codsaynaa walaalada insha Allah baleenkina waan sugaynaa laakiin hadda waxaan ugu soo aadan Ramadaanka waxaan ka codsaynaa walaalada inay caawiyaan 200 oo qof oo iimaanayso Ramadaanka ku afurayso. qofka Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii qof sooman afuriyo wuxuu helayaa ajrigii asagoo soomanaa oo kale. marka insha Allah walaalada waxaan ka codsanaynaa 200 oo qof maalin kasta ku soo afuri doonta meesha insha Allah inay naga caawiyaan. dhismahana kulli waa iskaga iimaan doonaa hadii la yiraahdo. dadka hadda la afurinayo 200 oo qof waa dadkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala sababta annaga nooga dhigay oo dacwada ugu yarnay. ilmahoodii iyo waalidiintoodii Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabab nooga dhigay kuwaas aan rabnaa insha Allah walaal waxaan ka codsanaynaa qoysaskaas cusub oo muslimiinta ah inay afurkooda ka qayb qaataan. masaajid hore waxa ku yaala Tambiza masaajid badan ku yaalo laakiin xaafadan Swazi in masaajid ku yaala malaha waana goob ganacsi Soomaali badan ganacsi kule wax masaajid oo ku yaala malaha marka kana hadda ugu horeey. من يهدي به الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقعي هو شريف أبو كرفي وحن كإمدي مقالة جوهانسبرغ وحن مانتا صوبة وضيون جوغا مسجد هل كان له هرقليي مقالة حافظ الله يقانو تنفيزا حافظها عانكا oo dadka madowga ay degan yihiin oo ugu waaweyn wadanka kamid tahay waa xaafad caan ah oo aad u camiran masjidka meesha laga hirgeliyay ma sha Allah waa meel suuqa meel santara oo suuqa oo dukaamo badan iyo ganacsi badan ay ku yaalaan sida u jeedin waaye salaada jumcadan soo dukanay ma sha Allah masaajidku aad buu u camiray runtii aad baan ugu farxay aniga markii hore ma moodayn maaragtay ii sheeg xaafadan Timbiza gaar ahaan xaafadan hadda aan joogno in muslim inta la uu joogo laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiis walaalo muslimiina oo Soomaali u badan oo ganacsi halkan ku leh iyo dadka wadankan oo soo muslimay ayaa masaajidka aad u soo camiray runtii aad baan ugu faraxsanahay in bayt Ilaahay laga hirgeliyo halkan waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiis thumma fadligaas waxa iska leh walaalo Soomaaliyeed oo Sheekh Abdirasaaq uu horkacayo ma sha Allah jazaakumullahu khayran oo runtii juhdigan iyagu bixiyay gurigan geday masaajid u bedelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankooda aakhir Allah u saaro cid alla cidii maaragtay gacan ka geysatane waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankiina aakhir Allah idin saaro insha Allah ta'ala meeshu waa meel dadka lagu soo muslimiyo hadii Ilaahay ira insha Allah ta'ala Ramadaan ugu soo dhow dad la afuri doona insha Allah ta'ala 200 gaaraya oo muslimiin cusub marka walaalaha muslimiinta insha Allah ta'ala kulligiinba oo Soomaalidu ay ugu horeyso ka qayb qaata insha Allah ta'ala dacwada diinta halkan ka fidiya jazaakumullahu khayran aad baad u mahadsantiin.